xisbi mucaaradka wadani ayaa socdaallo loogu kurgelayay isla markaana lagu taakulanaya dadka iyo dunyada la ildaran abaaraha waxay ku tageen deegaanada bariga iyo koonfurta Sanaag waxaana hogaamiyaha wadani Xirsi Cali Xaaji Xasan oo kormeeradan hogaaminayay u gaaray deegaanada Dhoob Carmale iyo Be iyo Jiidile oo dhamaantood bariga Sanaaga deegaanadaas oo bulshooyinka ku nool ee xisbigan wadani si weyn ugu soo dhaweeyeen ugana xog warrameen xaaladda abaaraha iyo baahiyaadka deegaanadaasi waxaan u sheegaynaa wafdada ka socota wadani laba sano inaan halka roob helin Dhoob barkadina ay ka maartay ceel kale aan ilahay waana idin soo dhaweynayna jiidan balaaran ee Carmale iyo noloshiisa waxaan leenahay dadkani waxaan u maleeyaa xisbi ka horeeyana ma arag xukuumadna ma arag hay'adana ma arag xagal wax ma soo dhaafin ana ka marqaantiyo joogay waxa weeye wafdada balaaran oo ka socota xisbiga wadani oo maanta na soo gaadhay waa soo dhaweynayna gacmo furan baan ku soo dhaweynayna xaqana waan la ka yiraa degmada Ceergaabateen xaqana waxaan leeyahay Sanaag bari baatiin heela dhaxan kulunay kuna dhacanay abaar taa dhulka ku soo marteen mid ka sii kulul baalkan ka jirta xoolo iyagu hadal maanta ma leh waqtigoodii meelaha soo wada yaal wafdida uu hogaaminayo mudane Xirsi Xaaji Xasan oo ah hogaamiyaha guud ee xisbiga wadani waxaan ku soo dhaweynaynaa degmada Yube haddaan toddobaadka aynu ku jiro xaaladooda wax fiican laga qaban oo aan dadka iyo dunyada la quudin waxa weeye Soomaaliland waanu ka baxnay isagoo hogaamiye Xirsi Cali Xaaji Xasan bulshada deegaanada uga mahad celiyay soo dhaweynta loo sameeyay sidoo kalena ka hadlayay ujeedada socdaalkiisan iyo waliba deeqdan isugu jirtay biyaha iyo cuntooyinka fudud ee loo qaybinayay dadka jilicsan ee deegaanadaasi ku sugan hadaladiisii waxa ka mid ahaa xisbiga wadani ayaanu wafdiganu ka kooban yahay waxaanu soo maray dhul badan olole uma socono iyo arin xisbiimka uma socono waxaan u soconaa dadka dhibaataysan iyo xoolaha iyo mushkilada jirta inaan waxaan ka qaban karaynayo waxaan ogaan karaynayo waxaan arinta abaarta ka taakuleen karo wargelin karo ama u dhawaaqi karo dunida iyo dadka iyo dalka iyo ahalkaba gaarsiin karo iyo dawladda iyo cid walba gaarsiin karana gaarsiino marka hadii alla ka dhigay socodka saas oo ahaa iminka biyo kale waa sidna waana daba socdaan biyihii qaar waa joogaan biyahaas insha Allah taala kulliba qaybin doona hadii alla ka dhigo wixii awoodi tiraahdo weeye insha Allah taala waana kulliba idinka wargeynaynaa waa idinka wargeynaa gudiga abaaraha haday tahay dadka waa idinka wargeynaynaa waxa muuqata ninkan aan inta soo taagnay markaa nimi inuu xoolo waxaan uga soo hadhay 12 neef oo soo hadhay wixii kalena waa ka baqtigoodii meelaha yaala xoolihii oo ka baxay qof walba waxaan leenahay oo ah deegaanadan abaartu haleeshay ilaahay u noqda u toobad keena bariya insha Allah taala ka qoosana bariyaysa ilaahay waa inoo gargaaraya sidoo kalena gudoomiyaha xisbiga wadani ee gobolka Sanaag Maxamed Jaamac Xasan Daadi oo ay heliyeen xubno isla xisbigiisan iyo xildhibaanada deegaanka Ceergaabo ka tirsani deeqdan hogaamiyaha xisbiga wadani u fidiyay ee biyaha iyo cuntooyinka fudud isugu jirta waxay gaarsiiyeen deegaanada Masagan Halyare Habaariso lama deegaan Adinboholle iyo Dhawandhiga oo koonfurta Sanaaga kuwaas oo bulshada abaaruhu haleeleen ay isugu soo guureen waxaan ka soo guuray anigu degmada Yube maantana waxaan aalaa oo waqtigu keenay 80 kiiloomitir ku dhow baa soo guuray waxaan joogaa meel la yiraahdo Habaariso marka aad iyo aad baan u mahadinayaa dadkana taakuleeyay ee xisbiga wadani waxaana gudoomiyaha xisbiga wadani ee gobolka Sanaag Maxamed Jaamac Xasan Daadi iyo xubnaha uu heliyay iyagoo goobaha ay deeqdan gaarsiiyeen ka hadlayay baaqiyana u diray gudida taakuleynta abaaraha Soomaaliland hadaladoodii waxa ka mid ahaa sidan Halyare Habaaso iyo lama deegaan goobahaas aanu maanta marayna kulaal iyo orbogays iyo weynoo dambeynayaan insha Allah bismillaahi kariim waa dad u baahan in la taakuleeyo oo laba reer istul saaran dadkaas ma haystaan waxay cabaan ma haystaan meel ay ku hoydaan ariyay way ka barakaceen wixii u soo noqday way ka wada baqtiyeen indhaha iyagaan ku soo aragnay dadka ay loo soo gurmado dadka gobolka Sanaag caawimada ku qaybinaya jiidaa toos uga soo jeedaan waxna ma geeyaan dadka caawimaduna meel gaar ah maraysa annagu maanta waxaanu halkan u nimi inaanu dadkii soo guuray ee isu soo guureen aanu soo ogaano dadkii soo guuray waa dad wada degan markii horena wada degan hadeer isu soo guuray dadkaas markaanu aragnay inaan cidina danaynayn biyaanu u keenay wixii aanu kari karaynaanu u keenay dadkeygii baanu u nimi oo haraadan waynala noqon weyday inaanu anagoo gacmo maran u nimaadno waana ogtihiinoo reer Soomaaliland anagu wixii aan xusbahan mucaarad haynay inaanu gudidii ku shubnay abaaraha laakiin dadkayga haraadan oo haraad u baqtiyaya haddana waynala noqon weyday marka meeshii u baahan hadba dadku haraad ugu liitaan waanu ku qasbanay inaanu tagno annagoo aan uga jeedin
kaambeyn uga jeedinay yihiin dadkan dadka yagii waxaanu soo leenahay guddida abaaraha bariga Sanaag iyo galbeedka Sanaag iyo waqooyiga Sanaag intuba way baahan yihiin dadka xil baa idinka saaran idinka wixii la ururiyay lay gacanta la idin geliyay ina madaxweynaha la wareegtaan oo daba socotaan xaq noqon mayso ina dhulka qaarkii 10 jeer lagu celiyo oo wax la siiyo biyana xaq noqon mayso bulshada soo guurtada iyo kuwa hore u deganaa deegaanadaas ayaa iyaguna deeqdan uga mahad celiyay xisbigan wadani sidoo kalena waxay sheegeen inaan wax taakula ka helin xagga xukuumadda iyo hay'adaha samafalka toonna xisbigan dinoo yimi ka horowna annagu ma aanan arag hadday raashin tahay hadday biyo tahay waxna soo gaari xisbigan wadani biyo waa ka qabtay beesha waxa weeyaan aad baan ugu mahadnaqaynaa wax loo jajaban oo shaqeeyo dawladda ma hayno xisbiga wadani baa noo yimi mahad baan u naqaynaa iyo horaantii naga biyo dad iyo duuyo saaka waxaan u mahadnaqaynaa wadani saaka caawimada ilaah baa caawimada biyaha iyo waxa hortay saaka baadka ay noo keentay annaga wixii nala soo dirsa oo xisbigaasi dadii uu naga rabo diyaar baanu dhamaantay u nahay dhinaca kalena gudoomiyaha xisbiga wadani ee gobolka Sanaag Maxamed Jaamac Xasan Daade isagoo xisbiga kulmiye ku eedeeyay inay ololo siyaasadeed oo aan waqtigiisii la gaadhin kaga faa'iideysanayaan safarka madaxweyne Siilaanya wuxuu yiri calaamad xisbi ma sidano calan ma sidano calanka kulmiye odayga ku hoos lamaana waxaanu leenahay war maanta maaha markii ummadda calanka loo hoos gelin lahaa ee waa markii la sabata bixin lahaa oo waxooda liita wax loo geyn lahaa calanku way noo dambaynaya waynu ku tartami doonaa laakiin maanta calanka madaxweynaha hoos wadaana madaxweynuhu xusbu uma socdo wuxuu u socdaa heer qaran marka kulmiyaha nala tartamaya ee odayga ku hoos gabanayo soo banaan bax sidaanu anagu ummadda u dhexmarayno u soo dhexmara odaygana culayska laga dulqaadaan leeyahay odaygu aad baa culays ku dul saaran yahay waxaana xusid mudan in deegaanada qaarkood hore loo sheegay in deeq raashin la gaarsiiyay ay sheegeen in raashinka soo gaaray uu yahay mid aad uga hooseeya wixii loo qoondeeyay qoys ahaan ama loogu talagalay taasoo aan waxba ka gaadhin ama kaga filan cidii ay gaadheen halka dadka intooda badanina aanay jirin haba yaraatee wax gaadhay ama ay heleen oo deeqdaas la sheegay in la gaarsiiyay anigu waxaan ahay gudoomiyaha goobta Dhabandhige oo ka kooban jiida badan goobta iyada ah afartii beeloodba way isugu timi bariga galbeedba waa la isaga soo guuray wixii soo gaadhayna waa la ogaa 900 oo qoys baa soo gaadhay 1,100 qoys ayay ka go'day raashinkii meesha la keenay ay keeneen qolada dawladdu 2 kiilo oo timira iyo 36 kiilo oo raashina baa qoyskiiba qaatay de waxaan u sheegaynaa waxa la leeyahay wixii guddida abaaraha ah inay dadkaas si degdeg ah ula gaadho biyaha iyo caawimada waxa aad iyo aad la yaab u ah in la yiri 900 oo caayiladood ama 900 oo qoys ayaa 36 kiilo reerkii walba la siiyay iyo 2 kiilo oo timira waa wax laga naxaa waa wax la yaabaa cidda waxa soo qorshaysay waa ka daba tagaynaa وعبد الله حسين درويش كلسن تي في عيري قابو